daafurka waxaa joogay madax ka socota wasaaradaha warfaafinta, caafimaadka, arrimaha diinta iyo maamulka gobolka Banaadir iyo culimadiinka magaalada Muqdisho oo dhammaantood ka tirsan guddiga wacyigelinta ee heer qaran ee COVID-19. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhanka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Marwo Basma Caamir Axmed oo sheegtay in maanta uu bilowday wajiga saddexaad ee ololaha wacyigelinta ka hortagga COVID-19 ayaa sheegtay in wacyigelinta halkii ugu sareysay ay marayso, waxayna shacabka ku boorisay in laga taxadaro isku dhawaanshaha. sidaad ogtihiinba shalay iyo maanta inay kala duwan tahay, cid walba ayaa og COVID-19 markuu imaanay Soomaaliya nambarka uu joogay maanta inuusan joogin. taasi waxaa suurtagelisay wacyigelintii ballaarnaa ee laga sameeyay wadanka oo dhan. aad iyo aadan loo hirgeliyay wacyigelintana waa waxa kaliya looga hortagi karo COVID-19. bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka Banaadir waxaan u sheegayaa waxaa soo dhow maalmaha ciidana sidaad ogtihiinba in dadka isbooqdaan meel walbana ay noqoto meel zaxmo ah la iskugu yimaado, inay yareeyaan marka inayna isku soo imaanin, inay isku soo dhawaanin. cudurkaaniti weli wuu jiraa, marka inaan hadda meesha aan taagannahay aan ku soo gaarno dadaal inaysan dib loogu noqonin ee noqoto booqashadii isku soo dhawaashada in laga taxadiro. sidoo kale masaajidaha waxaan codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay face mask ay xirtaan eena kala fogaadaan markii lagu dukanayo salaadaha waqtiyada farliga ah iyo salaada ciidaba. sidaad ogtihiinba maxaa la rabaa wax walba wanaaga lagu sheegayo ama culimada ay sheegayaan, bahda caafimaadka ay sheegayaan in sidii loo sheegay loo qaato. wax walba dadaal la sameeynayo waxaa lagu sameeynayaa nafsada bini'aadanka oo ah mid qaali ah, aan rabo in laga taxadiro. marka cudurkaaniti waa cudur jira wadamada caalamka uu baabi'iyay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku shukrineynaa. annaga maanta adduunka siduu u galay maanta annagoo og xaaladda aan ku sugannahay ama awooddeena intay gaarsiisan tahay, haddana dadaalka aan muujinay in dalaal badan lagu arkay ama wax badan oo wanaagii iyo caafimaadka dadka bulshada lagu arkay. aadaan ugu mahadcelinaa siday nambarka 449 ee bulshada sida fariimaha wacyigelinta iyo ololaha wacyigelinta ay u bilaabatay inay bulshada la soo xiriirayaan nambarkaaseeti talooyinka caafimaadka ay ka qaadanayaan. haddee u baahdaan in loo geeyo isbitaalkii Martiini oo loogu talagalay ka hortagga cudurka COVID-19 ee adeegii loogu talagalay bulshada si wanaagsan ay u helaan. haddee noqon ambalaastii soo qaadi lahaa, haddee noqon lahayd daawooyinkii markaaseeti isbitaalka diyaarka uga iyo shaqaalaha diyaarka uga ah. aadaan ugu mahadcelinaa cid walba oo ka qayb qaadatay ololahan ama wacyigelinta socota magaalada Muqdisho. Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abuukar Soomow oo goobta ka hadlay ayaa shacabka ugu baaqay inay joojiyaan booqashada inta lagu jiro maalmaha ciidda si loo baajiyo ka qayb qaadashada faafitaanka COVID-19. haddii aan culimada Soomaaliyeed waxaan leenahay sidii nabigeenu dhahay calayhi salaatu wasalaam, ruuxa juudaanka qaba sida libaax uga cararayso uga carar oo yiri. waxaan leenahay dadka waa inay uga cararaan karoonaha aysan wehela naqan sidii ruux juudaan qaba, sidii libaax oo kale uga carar lahaayeen cadowga ku dilaayo. libaax waa muuqdaa, cadow oo libaax ka halisan oo muuqan waayay. waxaan leenahay marka idoo aan qaadanayna tilmaamaha ilaahay oo yaa ayuhalladina aamanuu khuduu xidrakum ilaahina leeyahay dadka alla rasuul rumeeyo digtoonidiina qaat. anakoo ka duulayna tilmaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam ee aan soo sheegay. waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed qofka xanuunsanow, nabigeenu wuxuu diiday calayhi salaatu wasalaam in xoolaha xanuunsan geela candaysan lagu daro geelaba fafayow. qofka xanuunsanow walaalkii adigu ha gaarsiini, halkaagana ha gaarsiini. dadka fayaabo adunkuna ka dhowrsada. walaalayaal gurihiina ku ciida. waxaan cod dheer ku leenahay haddaan culimada Soomaaliyeed nahay, walaalayaal gurihiina ku ciida, sama ku ciida, gurihiina ku ciida. salaanta iyo booqashada oo caadada noo ahaa jirtay maadaama uu cudur halisa oo yimid joojiya. حكم نقنينا dadka faafinaya karoonaha ee ummadda ku sii dheeraynaya ee saaxiibka la karoonaha ka mid naqanina garab ha siinina karoonaha gurihiina ku ciida digtooni qaata awaamirta ladin faraaya ee xukuumadda ka imaanaysa ee bahda caafimaad ka imaanaysa ee culimo diinka ka imaanaysa oo awaamir diini ah oo awaamir dawli ah walaalayaal qaat aan iscaawina kulligayna aan isku caawino ismaqal aan isku caawino ina dalkayna dadkayna aan badbaadino
aan isku caawino inaan dareenno cadowgaani inuu cadow dilaa kulligayna la dilaaya wiilkaaga ay gabadhaada aabbaha hooyada naftaada saaxiibka kulli cadow ah gudoomiyaha guddiga wacyigelinta ee heer qaran mudane maxamed cabdi xayr maareeye oo sheegay in guulo laga gaaray wacyigelinta ka socota dalka gaar ahaan gobolka banaadir ee ku aadan ka hortagga covid-19 ayaa xusay inuu yaraaday tirada dhimashada ee cudurka halista badan wasiir maareeye ayaa sheegay in ololaha maanta bilowda lagu magac daray toddobaadka wacyigelinta baacsiga iyo ciribtirka corona waxaanu bilaabaynaa hal wiig oo wacyigelintii aanu wadnay aanu xoojinayn oo loogu magac daray toddobaadka wacyigelinta baacsiga coronavirus iyo ciribtirka oo la ciribtirayo aan doonayno beledkeenna magaaladeennu inay noqoto meel ka xor ah xanuunka xumadda badan dhibaatada badan ee coronavirus dowladda soomaaliya oo runtii sida la sheegay maadaama aynu gacanteenna ku burburinay dalkeenna dowladaha adduunka ugu tamarta yar xagga dhaqaalaha iyo ay ka mid ah haddana waxaa la sameeyey dadaalkii ugu badnaa cusbitaallo waxaa la sameeyey fiican oo dadka adeeg fiican lagu diyaariyey wakhti aad iyo aad u kooban oo aanu ku dadaalnay in qof kastoo soomaaliya inkastoo gobollada badan aanaan gaarin la gaari doono hawsheedii socoto meelo badan oo hadda muqdisho iyo gobollada dalka ama magaalo madaxyada gobollada dalka meelo ka mida qof kasta in adeegga uu baahan yahay la siiyo ayaanu ku dadaalnay toddobaadkan waxaanu ka codsanaynaa warbaahinta xortaa oo iyadana ama gaarka loo leeyahay oo aanu iyadana runtii nagala qayb qaatay wacyigelintii hore laakiin aanu doonayno intii in ka badan inay nagala qayb qaato oo warbaahintu 17 degmo ololaha ka socda station kasta ama xarun kastoo warbaahineed 17 tiim ay u diraan ayaanu doonaynaa oo guddoomiye kasta oo degmo uu la jiro telefishinka kasta oo Soomaaliya ka furan mid ka mid inuu la jiro ayaanu idinka codsanaynaa insha Allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa dalkeenu inuu noqdo dalka geeska Afrika ugu horeeya ee xanuunku ka dhibgo taasoo inoo saamaxaysa in dhaqaalaheennii uu dib u soo furmo in ganacsigii dib u furmo in shaqo abuurkii dhalinyarada ay qorshaysnayd in loo sameeyo uu dib u furmo ayay khasbaysaa marka waxaanu ka codsanaynaa ugu dambeyntii culimada Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhammaan dalka maamulada jira in la iska kaashado sidii xanuunkan looga ciribtiri lahaa Soomaaliya sidii xanuunkan sida ugu dhaqsaha badan uu uga bixi lahaa Soomaaliya taasoo ay keenayso oo kaliya in isu gudbintiisa la yareeyo haddii maanta qofkaani uu qaado berrina kaas qaado marka bixi maayo laakiin haddaynu dhowr wiig wacyigelinta dhakhaatiirtu inoo sheegeen ku dhaqanno oo xidhno oo diidno in qofku uu xanuunka sii gudbiyo isagana wuu ka baxayaa 2 wiig buu kaga baxayaa sidaasuu ku dabargo'ayaa xanuunka marka inaad nala qaadaan ayaanu doonaynaa insha Allahu tacaala wacyigelintaas gaar ahaan warbaahinta xorta ah inaad nala qaadaan oo Soomaaliya iyo Muqdisho oo meesha ugu dadka badan ah inay labada wiiga hadhay aynu ku wacyigelino qofkii xanuunsanna dhakhtarka geeyno haddii uu u baahan yahay in la daryeelo oo dawladdu diyaar bay ula tahay marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin toddobaadkaas dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in wacyigelinta ka hortagga cudurka COVID-19 ay gaartay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir isla markaana rajo wanaagsan laga qabo in cudurka laga ciribtiro guud ahaan dalka